howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darada ah ee ku yaala bartamaha suuqa weyn ee magaaladan Boorama ayaa saaka waxaa sameysay dawladda hoose ee magaaladan Boorama. howlgaladan lagu burburinayo goobaha sharci darada ah ee wadooyinka soo galay ayaa waxaa ku dhaqaaqday dawladda hoose ee magaaladan Boorama, waxaana goobjoog ka ah halka uu howlgalada ka dhacayay xogayaha dawladda hoose ee magaaladan Boorama Cabdirasaaq Cali Cismaan. xogayaha dawladda hoose ee Boorama Cabdirasaaq Cali Cismaan oo Somali Channel ay kula kulantay goobta ay ka sameynayaan howlgalada lagu burburinayo goobaha sharci darada ah ee laga dhistay magaaladan Boorama, gaar ahaan suuqa Boorama, ayaa waxa uu ka waramay waxa ku kalifay xilligan oo isbedel uu ka dhacay Somaliland inay goobahaasi oo in muddo lagu shaqaysanayay ay burburiyaan. waxa uu yiri dadka warkiisaan waxaan ogeysiis badan baan kala hadalay ka baneeya si ay labada baawr isku dhaafaan. dadkii waxaad ku arkaysaa intaadoo kala tibaan in la ku soo tarsanaya nin walba baridiya loo qalan baridiya ku soo tarsanaya. sidaa darteed waxaan qaaminay in jidkii la baneeyo, baridiyaashii la furo, meel kastoo dhagax yaalana ka qaado. magaalada Boorama guri walba waxa yaala dhagax, fikir walba dhagax dhagaxa hor yaala xaafadda iska guriga anagu gabadhideeda ku furanay. horta always inta badan sabtida Soomaaliya laakiin 7 days baan ku wadayna. qodobada ay soo digaar walba ama guri walba dhagax hor yaala waa in la qaadaa ama naga qaadano. waxaan soo bilaabno halka qofkii markii horeba dib u yaalay ma doonano laakiin jidka soo gaaray waan ka qaaday. qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Boorama ayaa Somali Channel iyagana ugu waramay dareenkooda ku aadan howlgaladan lagu burburiyo goobo ay ku ganacsanayeen in badan. waxayna yiraahdeen waan jecelahay in ummadda dariiqa loo baneeyo, waan jecelahay laakiin siyo intii baday tahriibtay inta hadayna laga tahriibiyo waddanka ma jeclano baneeyo waddanka laakiin nidaamna lagu daro kuma sanaa waxaan dadka suuqa ka bariiska ka raadiyay ayaan hayn. marka waxa burburka hawshaan naga tagay waxa weeyaan dawladdii hore ee udub hawshii ay barnaamijkii ay ka tagtay weeyaan. dadkan burburka ugu wada imika ee bariiska ka xumay waxa weey marka dadkaasi in laga bedelo shaqaalaha dawladda hoose ka shaqeeya ee mas'uuliyiinta xogayaha iyo ay ka mid yihiin iyo nimankan dhulka cuna ee yoomkii xagga la jeexayeen meesha dhisanayay waxay ka qaadeen biso ayay dhulaadeen 300 kun bay ka qaadeen. maantana waxa weey wadaminayaan oo waxay ku leeyihiin dawlad cusub baa dhalatay baahna shaqaaleysiiso. marka taasi barnaamijkaasi ay dadana lagu fulinayaan mar labaad iyagoo markaa lacagteeda laga qaaday. saas burburkaasana ku dhacay dadka bulshada inta laga balaadan. si kastaba arrintu ha ahaatee xilligan oo Somaliland ay ka dhacday isbedel xoogan oo dhinaca maamulka ah ayaa haddana dadka waxay ka cabanayaan maamulkii hore ee madaxweyne Rayaale uu hogaamin jiray, taasoo ay sheegeen inuu qarashaad ugu qaatay goobahan sharci darada lagu tilmaamay ee maanta laga jajabiyay. Cabdifataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.